waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu da'da yar Afrika sababtoo ah dalka Koonfurta Suudaan waxaa la aasaasay 10 sano ka hor 9kii Juulaay sanadii 2011 gobolkii Koonfurta Suudaan ayaa xorriyadda qaatay oo ka go'ay Suudaanta kale 10 sano ayay ku qaadatay inay halka gaaraan dadka dalkaas iyadoo ay hareeyeen dagaalo sokeeye dhimasho iyo burbur markii Koonfurta ay u codeeyeen inay ka go'aan waqooyiga waxay rajo aad u badan ka qabeen in dal cusub oo hodana ay noqdaan isla markaana ay helaan awood lagu gaaro horumar aan la soo koobi karin xilligii uu socday halgankii gobonnimo doonka ee Koonfurta Suudaan caruurtu waxay ka mid ahaayeen dadkii sida aadka ah ay u saameeyeen dagaalo 23 sano qaatay kumanaan kun oo wiilal ah oo da'doodu ay ka yar tahay 7 sano ayaa ka mid noqday ciidanka safka hore kaga jira dagaalka boqolaal qof ayaa ku dhintay dagaalka boqolaal kalena waxa ay u dhinteen gaajo abaar iyo cudurro in ka badan 20 kun oo caruur oo South Suudaan ah ayaa masaafo dheer ku dhex lugeynayay Itoobiya ilaa iyo Kenya si ay uga badbaadaan waxyeelada dagaalka qaar badan oo ka mid ah caruurtaasi waxay waalidiintooda ku waayeen dagaalada caruurtii ay u suurta gashay inay gaaraan xeryaha qaxootiga qaar waxay aadeen dibadda gaar ahaan Mareykanka halka kuwa kalena ay dib ugu noqdeen Koonfurta Suudaan mid ka mid ah caruurta ay si toos ah u saameeyeen colaadda waxa uu ahaa fanaanka caanka ah Emmanuel Jal dagaalkii labaad ee sokeeye Suudaan wuxuu bilaabmay sanadii 1983 wuxuuna dhamaaday 2005 wiilal badan ayaa iskuulada ama waalidkood laga kaxeeyay iyaga oo aad u yaryara waxaana loo diray jiida hore ee dagaalka Jal wuxuu ka mid ahaa wiilashaas dagaalku wuxuu bilaabmay isaga oo 3 sano jira markii uu 7 jir ahaana waxa qabtay jabhadii oo tababar ayaa loo diray marna ma go'aansan inaan noqon doono askari waxaana loo sheegay inaan iskuul u aadno dalka Itoobiya waxaana loo kaxeeyay Itoobiya markii aan halka tagnana waxaana loo tababaray ciidan ahaan iyadoo la adeegsanayo qori ayuu yiri Jal tababarashadooda iyaga oo aan xitaa qalad samayn xilli hore ayaa la toosiyay waxayna bilaabeen orod waxaan aragnay caruur loo dilay sabab la xiriira inay sarraacin tilmaamaha mana jirin cid ka naxday taas ayaa naga dhigtay dhammaanteen inaan u hoggaansano awaamirta Jal uu u adkaystay shaqooyinkii adkaa ee tababarka si uu u barto sida loo adeegsado qori loogana arguto kuwii dilay eheladiisa hooyadiis waxaa lagu dilay dagaalka korinta aanay qaban jabhadu waxaan cabna kaadi si aan naftayna uga badbaadino dhimashada Jal ayaa sidaa yiri markuu 13 sano jir ahaa Jal wuxuu ka mid ahaa jabhadka agdhoweyd magaalada Juba caruur badan oo askarta ka tirsanayd ayaa tagay ciidanka iyagoo ujeedadoodu ahaa inay qoysaskooda iyo eheladooda ka badbaadiyaan dhibaatada wuxuu soo raacay ilaa iyo 200 oo asxaabtiisa ah waxayna go'aansadeen inaysan dib ugu laaban oo ay qaadaan wadadii ay mareen wiilasha kale ee iyaga la midka ah kuwaas oo aaday Itoobiya si ay dagaalka uga cararaan cunno iyo biyo la'aan safarku waxa uu ekaa isku day dil dadka qaar waxa ay ku dhinteen jidka wax cunto ah ma haysan biyo haba sheegin kaadideena ayaan cabnaayo yiri Jal wuxuu sheegay in qaar ka mid ah ay gaareen heer ay cunaan hilibka asxaabtooda dhimatay wuxuuna ku dhawaaday inuu cuno hilibka aadanaha xitaa aniga waxaan doonayay inaan cuno dadka laakiin Ilaahay ayaa iga badbaadiyay kadib markii uu shimbir soo muuqday oo aanu dilnay kadibna aan cunay hadii kale waan cuni lahaa saaxiibkay ayuu yiri Jal markii kumanaan kiiloomitir ay lugeeyeen waxay gaareen xerada qaxootiga ee Kakuma ee Kenya Jal wuxuu nasiib u yeeshay in diyaarad lagu geeyo Nairobi caruurtii oo la socday oo ka badnay 200 ilaa iyo 16 oo kaliya ayaa timid xerada qaxootiga 10 sano kadib madax banaanida South Suudaan ma gaarsiisay rajadii iyo riyadii ay lahaayeen xornimada waxay qaateen 10 sano ka hor balse dhalinyaradaasi ma gaarin hadafkii ay ka lahaayeen madax banaanida Jal markuu tagay Kenya wuxuu u wareegay dalka Canada in badan oo iyaga ka mid ah waxa ka go'an inay ku noqdaan dalkooda oo ay ka gacan geystaan waxqabadka iyo horumarka qarankooda curdinka ah qaar ka mid ah kuwii dibadaha ku noolaa sida Jal ayaa soo noqday iyagoo xamaasadaysan kadib xornimada waxaana sidoo kale dib u noqday qaxooti badan oo ka kala yimid meelo kala duwan sida Kenya iyo Uganda markii uu qarxay dagaalkii 2013 waxa uu sababay inay dib ugu noqdaan dibadda kuwa aan soo laabanna ay ka tanaasuleen qorshahoodii ahaa inay dalkooda dib ugu soo laabtaan Jal wuxuu ku laabtay Canada dagaalka kadib laakiin waxa uu qorsheynayaa inuu ku laabto dalka Kenya dhacdooyinka aan la mahdin ee ka haray dagaalkii Suudaan ayayna arrintan tahay guud ahaan warbixinteena caawa ayaa inta ku dhan daawada muuqaalka like saar oo share gareen uguna soo biir oo saaxiib naga dhiga si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee dunida